بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول هذا مقعد الدنيا لدى جود ودى كفيلان وحن بطل هو رسول الله هذا الغياب لا هو سبحانه وتعالى حفلة إنه نبض قبنا عفوا قبنا في سوق كذا أيام ما كهرباء ومهذا الغياب مرلبات وحنو مهذا الغياب وكسر وكذا قاطي قبسوني ده حفلة وقصد بدن يعني نقول دبل دقينو يتمكمل ويوه ريان صدق على أورور سنة كان إسكاك عشري إن حفلة قبطان دلنا دقون سامية وكيلتي هراء ليسنوكس يور كبليارة اسمه لنا ماسدورس مركا وحنا هو يقول وسويتي دوينا كلهم إلا إن سنة كان صدق طلدوا أي هو جامين ساعة أي حفلة قبطان وحنكرو وما هذا غيا تدوينها شرفت له كسر قيب قلي حفلة وروح ضبطان له أيام ما هذا غيا رجع دبر عرور بليرو وين انتبه وحنا هاي يا يقولون ستهين إن حفلة نجلس قيب قشان أي نكون سينو maalintii aynu xornimada uga soo noqonay 8 kamil oo maalin wadnaha iyo qalbiyada dadka reer Soomaaliland u sunto inta markaan ka gudbo waxaan halkan salaam uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici aan bari uga dirayaa waxaan kaloo halkan ka salaamayaa oo bari ugu dirayaa gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada soo socota ee madaxtinimo oo ay kala madaxweynaha hadda talada haya mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Calwaraabe ayaan halkan ka salaamayaa oo aan ugu hambalyeynaya waxaan kaloo salaan halkan uga dirayaa gudoomiyaasha golaha guurtida iyo golaha wakiilada ayaan halkan salaan uga dirayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo hambalyo iyo salaan u dirayaa ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka reer Soomaaliland meel kasta oo ay ka joogaan daafaha caalamka xuska sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay dib loo soo shaqadii xornimada Soomaaliland inta marka ka gudbo haddaan wax yar oo kooban idinka siiyo dalada guud ururka dalada guud goorma la sameeyay wuxuu taagan yahay maxay shaqadiisu tahay si ay la socono muddo dheer kama jirin Soomaaliland muddo dheer kama jirin waddanka Finland urur tayo leh oo shaqeeya markaa taasi baahidaas ay waxay keentay in la sameeyo dalada guud oo ay ku midoobeen dadweynaha ku nool waddanka Finland arrimaha bulshada ee taagan ay wax uga qabato ay mashaariicdii waddanka laga fulin lahaa ay ka fusho waayo waxaa jira mashaariic badan oo aynu ka faa'iidaysan lahayn oo aan sidii haddii aynu wax shaqeeya oo isku duubanahay oo midaysan ay jiraan la qaban lahaa oo waddankeennii aynu ku tali lahayn waxaan kaloo ka cadaynayaa dalladda inuu yahay urur ka madaxa bannaan siyaasadda oo aan xisbina taageerin kooxna taageerin laakiin ujeeddadiisu ay tahay inuu u adeego bulshada reer Soomaaliland ee ku nool waddanka Finland gudoomiye ahaan anigu
qof kasta oo Somaliland oo ku nool Finland xubin ayuu ka noqon karaa waxbuu dooran karaa waana la dooran karaa cid maaha urur u xidhan koox ama xisbi u xidhan ama cid dana gaara u xidhan maaha marka bulshada reer Somaliland waxaan ka codsanayaa in ay taageeraan oo ay la shaqeeyaan guddiga gabagabadii waxaan kaloo mahadnaqayaa marti sharafta inala joogta ee xafladdan iga soo qayb gashay ayaan u mahadnaqayaa min halwankiinta arhoysan fiyaaraad yoodka tuligatan osaalistumaan meydhan itsan ay suuleen yuhla baybaan meekiita meteyta dhantimasti terfatua ja toivon meiltä Somalimaa saa itsenäisyyden ja Suomi olisi mukana, jotka Suomi olisi mukana ne maita, jotka tunnistavat Somalimaan itsenäisyyden. Ja lopuksi waxaan kaloo iyana halkan uga mahadnaqayaa walaalaheena Soomaaliyeed waddankaan dariska nahay ee iyana xafladdan igala soo qayb galay iyagana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin inay xafladdan igala soo qayb galaan walaalaheen weeyaan haddii aynu laba waddan oo kala madax bannaan ma aha macnaheedu Soomaalidu ay kala tegayso laakiin waxay noqonaynaa laba waddan oo jaar ah oo iskaashada ayaynu noqonaynaa marka iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aan leeyahay walaalayaal aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan xafladda gabagabadii waxaan mahad celinayaa bulshada maanta xafladda kaga soo qayb gashay aan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu